Soomaalida Itoobiya gaar ahaan magaalada Wajaale waxa halkaas xadhiga kaga jireen maalgashiyo kala duwan oo ay sameysteen muwaadiniin u dhashay deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kamid ah hotel ay maalgashadeen muwaadiniin u dhashay magaalada Wajaale ee deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo sidoo kale madbacad u adeegi doonta bulshada ku dhaqan magaalada Wajaale oo isaguna halkaasi ay maalgashadeen muwaadiniin ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana aqlada xariirka soo ay u soo agaasimeen maamulka magaalada Wajaale xadhiga si wada jir uga jaray waftigii ballaarnaa ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ka qayb galay munaasabada calaamasaarka madaxweynaha cusub ee Somaliland waftigan iyo xadhiga ka jaray mashaariicaha horumarineed ayaa waxa magaalada Wajaale ay noqonaysaa magaalo si weyn ugu socota dardar ballaaran iyadoo waqtigan ay ka socdaan dhismayaal kala duwan oo ku maalgashanayaan malqabanada kala duwan ee ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya waftigii ka socday deegaanka Soomaalida Itoobiya sida diran uga qayb galay munaasabada lagu daarinayo madaxweynaha cusub ee Somaliland ayaa si meeqaam sare loogu soo noqday deegaanka Soomaalida Itoobiya